سعدك شوشو عبد الله صفر شوشو saaxiibayaal halkan waa xamarcadda TV muuqaal kale ayaan idin heenahay gabadha lagu magacaabo Shuushu Cabdalla ayaa xaflad weyn oo dhiirigelin u badan si heer sarena loo soo agaasimay loogu qabtay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gabadha yar ee Shuushu Cabdalla ee TikTok gacanka ah ayaa maalmihii ugu dambeysay la kulmaysay caqabado la xiriira in muuqaal been ah laga faafiyay lana tilmaamay in Shuushu Cabdalla ay muuqaalkaasi iyada leedahay inkastoo dad badan ay u soo gurmadeen gabadha Shuushu Cabdalla la beeniyay muuqaalka been abuurka ee laga faafiyay walaasheen gabadha yar ee Shuushu Cabdalla ayaa reer Muqdisho isku duuban oo u badan TikTok iyo waliba YouTuber waxay xaflad lama filaan ah ay Muqdisho ugu dhigeen gabadha Shuushu Cabdalla hadaba dad badan ayay arintaasi fajac la yaab ku noqotay reer Muqdisho isku duuban yihiin isla markaana aan dadkooda wax laga sheegi karin Shuushu Cabdalla ayaa ah gabar miskiinada TikTok gacanka isla markaana waliba iska afgaaban marka laga soo tago muuqaalada comedianka u badan ay bulshada la wadaagto laakiin dhawaan waxa helay caado qaata gudbiyada caayada raqiis ah isla markaana baraha bulshada ku faafiyay muuqaalo been abuur ah oo gabadha yar kaga been abuuranayo isla markaana ujeedkiisu ahaa sumcad dil sharaf dil kaga xun yahay in gabadhaas yar ay horumar sameyso xaflad aan inaba caadi ahayn agaasinka ka muuqatana ayaabaysid ayaa Muqdisho loogu qabtay walaashan Shuushu Cabdalla kameera wixii ku soo maray ayaa halku dhig u ah habeenka Shuushu Cabdalla hadaba saaxiibayaal annaga ka xamarcadda TV ahaan markasta ahi wanaaga ayaan garab taaganahay Shuushu Cabdalla waxaan leenahay hambalyo hore u sii soco nacabku darbiyada ha jiro cadowgu darajada ha waayo caashiqa dambarkiisa maal ayaa leenahay Shuushu Cabdalla hadaba Shuushu Cabdalla ayaa runtii habeenkaasi waxay u ahayd habeen aan inaba caadi ahayn isla markaana marka la fiiriyo nolosheeda dambe ay gashay xusuus iyo waliba sida ay ahaan jirtay yaraanteedii maanta sida fudud ay magaca iyo mansabka ku gaartay inkastoo ay jiri karaan dadka xun isla markaana aan ku faraxsaneen habeenka Shuushu Cabdalla ayaa haddana mar waliba way iska jiri karaan cadow fara badan oo markaasi qofka horumarka u diidan garashi camal sami qof lihima waaye cadaaba lula bulshada ruuxa u doon cid baa xaga toolid ku ah ahay waxa jira dad had iyo jeer ku mashquula dadka horumarka sameeya isla markaana waqtigooda qaaliga ku lumiya sidii markaasi ay qofkaas ugu mashquuli lahaayeen waxay had iyo jeer raadiyaan ceebaha qofkaasi iyagoona markaasi ujeedkoodu yahay sidii qofkaasi uga dhici lahaa baska uu fuulo ama tareenka horumarineed ee uu saaran yahay hadaba mar waliba waa muhiim inaad qaybta commentiga aad ugu soo qortaan walaasheen gabadha yar ee TikTok gacanka Shuushu Cabdalla ayaa habeenkaasi Muqdisho marka la fiiriyo dadka caanka ay ku nool waxaad isleedahay walle lama kala maqneen habeenkaasi qof waliba shaqada uu hayay waa uu ka soo tagay isagoo markaas ujeedkiisu yahay dhiirigelinta iyo farxadda sida uu la qaybsan lahaa walaasheen Shuushu Cabdalla hadaba Shuushu Cabdalla dareenkeedu waa ay ka hadasho waxa ayna tiri dib waliba uu soo maray waxaan ku iloobayaa habeenkan oo kale ayaan ku iloobayaa oo ujeedkoodu ahaa anigu gocon maayo rafaadka iyo waliba dhibaatada faraha badan ee la ii geystay ee sumcadeeda la xiriirta wallahi mar waliba aan ku faraxsanahay congratulations hambali ayaa ku leenahay wana kaaga mahad celinayna sida aad ugu dulqaadatay dhibaatooyinkii aad ka hay lagu geystay Shuushu shankaroone sharafe quruxe midibkaga habadali make up hamartinin dadkan iyo kuwalin quruxdaada ha ku dhali macbaatay malabaatay quruxe maantana adiga noo ah lulde ninka kugu waalan haska ilmeeyo yo wiligaayo kuwaalin caduga aybtaadu dunayaa Shuushu ma ku gaaro nooseem garabka nuur baatay nalkii dalka waayo codsintaas hal mar aanu istaagto dhammaanteen idinkoo inoo maqlaya hal mar aanu istaagno صعبك
هاي ما صعبتنا صعبك شوشو عبد الله صفر شوشو هذا وما سنتين أنا أفري سكرتاني Apa disekertin? Madiso. Saya gini. مقولة همبليو أنت إنكم بدنا مخلطة إن شاء الله وضدي واحد سويلي مركا قوليسان كلية هاي أصحابك مرة البر وحا مهمة هدي أفن أرد إنا برنامج خمسين برنامج كعديق القوة عقرحي كانت بريسو أخر حوام هذا صح واي وحا إنتو وضا جوغنا وهبين فرحادات ينقون حوغا ما ركتي والله ما علبت الله مركا صح واي همبليان كلية هاي لابد أن نوابيه لهاي أو ما ركتي هدانا رين سوشيال ميديا هدانا هاي وحياه وحاجرو وأنا حتى جستي للربط إنا مرة اسكو شيئنا وحان اسكو شيئنا وحي تاي وحا معقولة انت وظفر لسو دادا هشي سيدني نكو جرين حقيقة لك هذا ربط إنا اسكو شيئنا لموران أدوكر وحا هو ناكسن شخصي أف سومالكو هدلايو إنا أديغا أغضب أم وحا لو جوغين إنا عروش أويسي وهذا هالبين أود في السين marka waxaan idin ilaa nin walba caawa fursad waaye ninka oo u jiran yahay ama ninka oo qalad oo ka aaminsan yahay adoona ma aragtay aad meel soo istaagay biniya qofkaas ina iska cafisid biri kamaan hada meel goona isku aragtiin ay is cafisin adduunyada ka u jeedin kala ayaan waaye wax kooban waaye wallahi wax kooban waaye waxa ogaanay qofka markuu agtaada ka baxo ama oo dhinto ogaanay hebel aniga asaga wallahi ciladaas laga dhaxaysay saas aheed hadda wax walba hala baabiyo caaw intaanu iscafiso wax weyn waaye raal noqda waxaan loo baahnaa hadaan galena kuni ko jira laga raal noqdo marka hambalya ku leeyahay guuleyso horta waa islaamay marka koowaad ninkan badbu nageliyay walaasha shushu waa u hambalyeynayna hambalyaan leeyahay runtii waa shakhsi aan taageero oo aan aad u jecelahay hambalyaan leeyahay hal mar idinkoo qaylina hambalyo ma dhihi karnaa muqdisho waxaa keliya ku jecelahay waxa weeye iska rabsiinta hadda maanta meel kale hadday ahaan lahayd waxaasoo dhallinyaraa ma imaateen laakiin shuushu waxay caddaysay inay leedahay dad wanaagsan ma been baa intaasoo caana halkaa ka bilow ilaa meesha ugu dambaysa gee intaasoo caana halkaa fadhidan waxaa leeyahay aan taageeraadi yahay caawa farxad iiga fiican ma jirto dadkii badnaa oo aan social media ka arki jiray inaan leed ku arkay caawa farxad bay ii tahay waana ku faraxsanahay halkan waxaan uga jeedaa walaalkay kii gooyn adigana maaragtay war sheekhna uu ii ballan qaado uu iga baxay markhaati waa ka tiri war sheekhna weynayaa weyni balantiina iga baxay waxaa kaloo nala jooga walaalkeen ahna sheekheena cabdalla rooy isagana maaragtay waa nala jooga halna loo sacbiyo insha allah waxaan keen doonaa halkaan asagana labadiisa kalmadood uu maaragtay uu ka tuuran doono dhammaan youtube-leyda tiktok-leyda iyo maaragtay snapchat instagram-leyda oo kulligii waa idin salaamaya qaarka filimaanta fiican noo soo sii daayana waa salaamaya kuwa naga farxiyana waa salaamaya kulligii waxay idin leeyahay hambalyo walaalka hambalyo moaha iyo munana waa salaamaya ayagana waa taageersanahay adigana farolox ninka reebari waa haddana xamar bilood isku marbaaniyo arigoo yahay qaadaya asagoo dhahayo yiri haddeer waxaa u imi ninkii dhahayo noo hadalka ugu dambeeya nooxda ku daraya maasantahay hilwalaad hambalyada insha allah dhammaan dad badan oo soo fiirinaya insha allah dhammaantiin waa hambalyanaysaan haddana waxaan u yeerayaa walaalkeen master keep going hal mar sacabkaa la siiyo
sida hambaliyada uga soo jeesaysan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة ماشي الله. هذا الذي ربي مدحنيتي خفضالة يا أصحابتي لكن وحنا لا نشكر يعني لا هي جودة واشيء لكن واشيء بدي كرا أنا أبتي عند الهواء بعد الوالد وأبونا طبعا مشيريها يا أركي أبا يا أركي دكتور وين أبا يدري وين كعب هم بدي كلها كل كوجر أنت اللي كم بدنا نقولها waxaa dareemaysaa dadkan oo dhan kulli waxaan malaynayaa qof maanta beeso ku soo siisay tilkaale ma jirto inay aad ku jecel yihiin marka sharaf iyo karaamo soomaalinimada haydu ku weynaato qalbigiina waa inaad soomaalinimada ka buuxisiin xogaada mushuxshuxda hoos ka xamadkaana hala iska dhaaf aad ayay salaama farala waa kana arin markaan barahay soo sida weeyaaniin tahay ugu dambeysay laakiin hadda noo horto oo ku faraxsanahay oo ku soo dhaweeyay xamar cadda TV aad naga daawanaysaan saaxiibayaal haddii aad inagu cusubtiin subscribe dhaha gambaleelka nafurta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddii aad hore inoola joogteen madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddii aad inoo haysaan qaybta commentiga inoogu reeb waan idin akhrin doonaa waana baddoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duco leh muuqaalkan kiis xigeenteena ku kulmi doono annagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.